بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. waxaan rabaa aniga waxa magacayga waxa la yiraahdaa Cabdi Xasan Afrax gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Kisbanaadir ilaahay baa mahadle waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo bulshooyinka ku dhaqan meel kasta oo joogaan deegaanka Hirshabeelle waxaan la bulshada waa salaamantiin waxaan sidaas oo kale si gaar ah rabaa inaan u salaamo walaalahayna reer Hiiraan oo ah haddii Soomaali la isku soo celceliyo deegaanka iyo dadka kaliya oo aan islaanahay waa kuwa ugu horumar jecel waxa maanta laga hadlaana wax burburayaan dhiso weyno kabkabnaa waxaan islaayahay reer Hiiraan inay jecel yihiin ognahay caan ku yihiin horumarka iyo dawladnimada iyo qarannimada iyo in Soomaaliya ay isu raacdo bulshada kaliya oo saas loo yaqaano taariikhda noocaas u taal waayo taariikh waxay ku leeyihiin wanaag iyo horumar iyo maartay inay ka shaqeeyaan wanaag saasan ku dhaqan anaga waxa marka bariyahan soo badanaya hadal hayn ee meesha ay ka socdaan waxyaabo aan haboonayn oo wixii dadka lagu yaqaan aan ahayn haddana waxaan rabaa inta badan inay soo ku sugan yihiin waxaan rabaa inaan salaamo akhyaartii shalay ka hadlaysay waxgaradkii shalay ka hadlayay Hiiraan ayagoo ka hadlaya horumarka oo ay gaaraan heer Hirshabeelle ay shalay hadlayeen hadallo asaasi ku muujinayeen waxaana nabad idinka gaarto waxaan rabnaa inaan halkan uga aqli celino oo fariin u darno niman odayaal ah siyaasiyiin ah xilal ka soo qabta dalka laakiin hadda u dhaqmaaya sidii ilmo mulqsho ah amba dad aan wax garan oo gurigoodii dhexdiisa wax ka sheegaya gurigoodii laga gacanayo maanta gacanta laga qabtayta habeen iyo maalina inta fadhiisteemeedii bulshadii yani ku wargelinaya waxyaabo aan haboonayn iyo waxaan jirin ku wargelinaya baan hadii la sheegayo waxaan jirin la sheegayo ama wax la isku diraayo wax laga rabaa dad loo malaynayo wax ma gartaan kuwaas la dhahay inay yiraahiin laakiin dad wax loo qabo oo shalay xil soo qabtay haddana raba inay bulshada isku diraan ma loo dul qaadan karo fariimaan u daraynaa waxaan leenahay walaalayaalow arrintaas sharafeedeen kuma jirto deegaankana dan uguma jirtee ka waantooba waan u duceeynaa ilaahay hanuun kale alladii soo hanuushan lana kuwa wanaagsan oo habeen iyo maalin u taagan sidii Hirshabeelle horumar ku gaari lahaayeen waxaan leenahay ilaahay balayna in kala idin kaalmayaan lana sharafaad leedihiin sharaf Allah idin yeelo ayaan leenahay kuwaana u duceeynaa alladii soo hanuushan lana qofta idoo fiicnaa jirtay ayay iska xumaa kartaa maqaadir waay waxaan ma ogtahay haddii ay wanaag ugu yiqiin ama taariikh fiican ugu yiqiin taariikhdaada waxaad cuni kartaa saacado aad u cuni kartaa adoo cibaadaysanaya 60 sano haddii aad hal saac samayso wax fawaaxisha 60 sano waa la ilaabayaa oo raysal leeyahay bilku balaayo ku dhac waa kaas waxa saas yeelo aan fiicnayn saas la yiraahdo marka waxaan leenahay odayaasha xilalka soo qabtay oo dalka ka soo shaqeeyay oo amaanta sharafta aan u haynay haddana isbedelay oo meediyaha fadhiya habeen iyo maalin ee caynaya gurigoodii iyo dawladnimada iyo horusocodka Hirshabeelle marwalba farta gelina waxaan ka joogaan Hirshabeelle maamulay leeyihiin niman walaalaha maamula madaxweynaha jara mudane Ali Guudlaawe madaxweynaha ku xigeenaha jara dabageed waxa jira baarlamaanka dhisan wuxuu leeyahay shirgudoon gudoomiyaha ku xigeenaha jara intaasoo dhan kullu Hirshabeelle ka dhacaysa Hirshabeellena dad badan degan meel hal nin iska leeyahay ma amba mid hal cid u leeyahay ma dad badan degan dadkii badnaay waxay isku raacayna u dhisan dadkii badnaay waxay dhistaan in hal qof oo caabayo sax ma ahan laba qof sax ma wax fiican ma ahan Allah soo hanuushan lana arrintaas maamulkan samaysanaa jooga wixii lagu kordhi karo waa lagu kordhi karaa laakiin in wax loo dhimaa sax ma aha qofta maamulkaas wax ku kordhi kartaa oo tagto wixii ka maqan oo horumarka saaciidaya ha ku kordhiso
qoftaan wax ku kordhayn nayay isku dirin bulshada walaalaha ah oo deegaanka isla ana wada degane faraha kala baxdan saasan kula talilayn anagu saasan kula talilayn Hirshabeelle waa urdan waa cusub tahay dib badan laga kulma markii la dhisayay deegaanada dhan sidoo kale looga kulma meel kasto la dhisay dib laga kulma hadda ay wax la dumiyo wax la dhisaa isku dhimo ah waxa fudud in wax la dumiyo waxaana dib badan in wax la dhiso marka wixii la dhisay kuwa duminaahu hakada ayaanu buriska ay ku dhifanayaan dhowrkii bayaanoo la dhisay buriska ay ku hayaan ha ka joojiyaano ha u kaalmeeyaano wax yani horumar lagu gaari karo hal yimaadana ha u kaalmeeyaano maamulkan u sameysana meesha ha ka shaqeeyaano dawlad wanaag iyo dadnimo iyo daldhis iyo horumarin ha u fikiraano markay u fikirayaan burburin iyo markay dib u dhac ku imaado dalka ha ka baan tobanaan leenahay walaalahayna waa soo shaqeeyeen xeel badan dalka ka soo qabteen oo waliba kala duwan haddana wali waxay u baahan yihiin inay xil qabtaan sida ka muuqanaysa meelaha adaan fiirino dhaqdhaqaaqooda ay noocay u subsan yihiin marka waxaan leenahay Allah ilaahay uu kale Allah soo hanuuniyo waxaan leenahay mas'uuliyiinta arrintaas aan u dhiibanay gacan ha lagu siiyo howlahooda oo ha lala shaqeeyo wixii uga diraaya oo wax ku kordhi karana iska dhaafaano bulshada ayaan la marin habaabin oo haddii wax eebad la sheegayo dad ku haboon oo baha sheegaan odayaashu ay sheegin waxaan jirinoo beena yay sheegin deegaanka hore ay ceebayn dadka horena ay ceebayn ayaguna ay ceebayn intaas waa iga talo waxaan leenahay marka maamulku far kale gaar fool ma dhaqdo waa jiraan waana la sameeyay laakiin waxay u baahan yihiin in bulshadu la shaqeyso in bulshada lagu kiciyo ama laga soo horjeedo isla shaqeyn maaha waxaan leenahay nimankaas odayaasha oo mas'uuliyiinta oo xilligan nasiib u yeeshay inay hogaamiyaan Hirshabeelle gacan ha lagu siiyo ha lala shaqeeyo qoftaan gacan siiyayna halaga amaana la guriga raasaka jirto afkaar qabsato ay isku dir inta meediya fadhiisato awee maana ku meediya fadhiye oo kala rooraya qoftii ma nabadu aada waxa kale mudan in loo mahad celiyo akhyaarta oo hogaaminaya si wasiirka arrimaha gudaha oo tageen meesha iyo siyaasiyiinta kaleba oo maaragtay ay madaxweyne ku xigeenka beesha jooga dhamaantoodba waxaan leenahay waa mahadsantihiin aan leenahay mahadweyne ka gaarto waxaad qaadeen talaabo ku dayasho mudan dadkan Allah garasiyan leenahay inta qalloocana Allah soo toosiyaan leenahay inta toosanna waxaan leenahay ilaahay ajr ka siiyaan leenahay Soomaali maanta waxay joogtaa meel yani la isugu soo gurmado la isugu kaalmeeyo joogtaa meel lugta la iska qabto ma joogto meel wax la isku taro la isla wada dadaalay joogtaa meel nin shaqeynaya nin lugta ka jiida inaan naqano taas waa waxaan ka soo jeednaa taas waaye marka waxaan leenahay walaalayaal mar kale way riiraan waa maasantiin yeedin miran habaabinin laba qof iyo saddex qof oo ayagu danagaara wataan oo wax gaara danaynaya oo loo jeedin danaynaya yeedin miran habaabinin ayagana waxaan kula taliyaa kolba xelalay rabaan dalka inay kale wax ka naqdanay rabaan bulshada ku dhex milmaano yey noqon kalluunka biyaha ka baxay iska dhintay yey noqon siyaasi wuxuu ku noolaan kariyaa bulshada dhexdeeda hadduu ka baxo sidii kalluunka uu biyo waayo u dhamaayo u dhimanaa bulshada lama noolaan karo hadda bulshada ka baxo waayaan bulshada ogtahay qofta ku kornaysa iyo qofta u dhamaysa bulshada waa kala yaqaaniin waxaan leenahay walaalayaal abariyahan sida aad ku shaqeeyaysiin Soomaalinimo ma ahan walaalnimo ma ahan isu kaalmeyn ma ahan toosa ciidayaysa dawladda ka dhisan Hirshabeelle ma ahan waxaan leenahay bulshooyinta waxa ay rabto iyo maamulka ay sameystaan kula shaqeeya haddaan awoodi karinana faraha kala baxa